السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my YouTube. Please dadku cusub tahay subscribe button iyo geenta like channel raacsi aan ugu soo maanta waxaan noo hayaa barnaamijkeeni reaction ka ahaa yaas reaction ka bixi doona maanta waxaan tagnay saa iyo TikTok yaas ka soo qabanay wiil magaciisa kaliya qiimo weyn ku fadhiya hadaba wiilkaasi waa kuma Mr Ahmed Tahridiid magacaasi kaliya ayaa qiimo weyn ku fadhiya hadaba Mr Ahmed Tahridiid maxuu soo bandhigaa maxuuna soo gudbiyaa waxa uu soo gudbiyaa barnaamijyo aad iyo aad u xiiso leh ay kamid yihiin caawi walaalkaaga hadaba waxaan guda gali doonaa inagoon video aanan ku dheeraanaynin barnaamijkan sababta aan soo gudbinaya ayaa waxaan u soo gudbinayaa ku dayasho ayuu mudan yahay walaalkani Soomaaliyeed oo waxa uu waxyaabo aad iyo aad u cajiiba oo in lagu daydo haboon hadaba waxyaabahaasi waxa kamid ah sida tan indhiin ku arki doontaan videogi ugu dambeeyay uu TikTok-giisa ku soo upload gareeyay ayaa idin geyn doona waxa uu soo bandhigan halkaas ayaan ka daawan doonaa balan ku sii socono waxaan magaalada Muqdisho xalay ka daawado Abdullaahi Saakana ka socdo aniga wax maray xaafad ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxaan arkay inay wadadan ay xirantay baabuurta iyo dadka ay istaageen laakiin waxa aniga go'aansaday inay suurta gasho dadka lugeyn inay maraan intaas kadib wadadii ayaan hagaajiyay dadka xaafadda isku kala gooshaya ma dhex maraya wuxuu suurta gashay meel ay maraan alxamdulillah aniga inta karaantiga mar waxaan diyaar lahaa inaan dalkayga dadkayga aan caawiyo waxa intaas kadib bulshada xaafadda degnaa waxay soo wada baxeen waxay arkeen in wadada ay noqoto mid ay gudbi karaan ardayda dugsiyeeda ayaa xitaa iyaga naftooda qayb ka ahaayeen inay maraan oo markii hore meel ay maraan weysnaayeen alxamdulillah waxa halkaas ugu yimaadeen magaalada Muqdisho ama xaafadii aan hawsha ka wada qaar ka mid ah oo yimaadeen oo qaarkood biyo ay keeneen وأنا هالعلم أصحابته ينتهي بخيرا ما هو باجوتي وحنا هالكن فريني دك الدنيا ضل ولا بدك كساد ويل كان قديش أيوم مدنيا هاي وايو وحو عاونيا وإسلا دتكيسة يدلكيسة واي وويل dadkiisa u damqanayo waxyaabaha ama u dhibaatooyinka ku dhacay oo adkeysan kareen just wuxuu sameeyay wada aragtaan bade wado ay dadka u talaabaan meesha ay doonayaan ama halka ay doonayaan oo u talaabaan hadaba videogiisa xiga muxuu ahaa muxuu sana ka tarjumay videogan wuxuu ahaa in maalin ay roob daaday oo maalintaasi uu u hagaajiyay wada ay maraan dadka waxa horta aan hadii ka dabageeyo sababta videoga loo duubay ma aha status waxa ay u duubayaan wiilkani ama dhalinyarada qaarkood ay u duubaan in ay dadka ku daydaan videoga looma duubay status waxa in ay dadka ku daydaan waxaan wax loo isku daydayaan dhalinyaradii ayaa isxilqaanto imika just sameynayso wadooyin ay dadka ka talaaban balan ku sii socon videogiisa xiga saaka waxaan soo kalahay inaan qurxiyo dalkayga hooyo oo aan la tartansiiyo wadamada caalamka hawshii ayaan gudagalay wadada ama isgoyska aan maray waa kilomitir 4 wadadani waxa uu calaamadeeyay waxay tahay inay ka gudubto hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo isla yar ama aabba kasta oo Soomaaliyeed oo u baahan meel uu maro sidaa daraadeed ayaan gudagalay hawshii markaan waday waxaan halkaas ugu yimaadeen dhalinyarada shaqada ka mid ah waxay igu muujiyeen garab istaag alxamdulillah halkaas waxaan barayay inay gudbaan wadada shaqooyinka noocan oo kale waxa la yiraahdaa barnaamij la yiraahdo waan isxilqaan nafsada ahaantaada isku xilqaamaysaa oo waxaad nadiifinaysaa wadooyinka sidoo kale waxaad nadiifinaysaa tikadaada ama xaafadaada agagaarkeeda meelaha waxay kamid tahay nadaafada nadaafada nasfal iimaan baa la yiri marka waa kan wadooyinkiisa ayuu nadiifsanayaa isagoon wax qarashan ku qaadanayn waxuu intaasi ku dhiirigelinayaa dhalinyarada walaalihiisa oo kale sidoo uu u arko kuwa isaga la mid ah balan ku sii socona videogiisa xiga halkani waa guryaha ugu qaalisan adduunka korkiisa saaran waxa uu diyaar garoobay inaan nadiifiyo beedkii alle oo aan maantay go'aansaday sidaa daraaddeed waxaan guda galay hawshii aan rabay inaan ka qabto masaajidka oo ah nadaafadda alxamdulillah intaasi kadib guryo fara badan waxaa jira magaalada ku yaala oo dadku ay intooda badan ay qursadaan ama ay hagaajistaan balse masaajidada qaar ay ku yaalaan magaalada intaas aan kaga gudubno videogaasi waa video uu hagaajinaya masjidka oo nadaafadeeda uu ku soo tabinayay waayo waa guryaha ugu qaalisan ee dunida yaalan waa runtiisa waxaan u baahan nadaafad iyo hagaajin dhalinyarada baa looga fadhiyaa iyo dadka markaas ku tukanaya masjidka marka waa ku dayasho kala mudan waa ku dayasho aad iyo aad u weyn balan ku sii socon videogiisa kala xiga
xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaan u qaybinayaa bacihii loogu talagalay inaan maanta ka fulino ololo ballaaran oo aan ugu talagalnay nadaafadda oo ah qashinka yaal xeebta liido ee magaalada muqdisho anigii dhalinyarada waxaa weli waxaad arkaysaa xitaa dadkii lixaadka lahaa inay caawinayaan ay sameynayaan ololo nadaafadeed iyo agagaarka marka ay ku nool yihiin in nadiifiyaan. waa video kale oo isagana ka tarjumaya in uu maanta waxaan raashin iyo biyo gaarsiinay ilaa 50 qoys oo Soomaaliyeed kuwaas oo abaaraha saameeyeen. haddaba maanta ku caawi walaalka waxaad awoodo bari ayaad u baxsan doontaa. صدقنا بيو أبقين وليغا كوكادي تبيانا بقول كاتريسان غريبا وكريسان كوكادي تبيانا بقول كاتريسان غريبا وكريسان بقولك وحيش به أبا هميني وكا أبا بقول الكنور بريئة نقودي بابا فيو مستر أحمد تهريبديد بل أنكو سيسوعون فيديو كلا أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حابب إني تهديني وأقول كم حو. وسيم حبيبك وطلع السلام عليكم. والكي يرتدي وترحمه هاللي نفتالا وده الشيء واحد معنا ما تلوي نجرو وده كاجو جان سبير بارتس لقاعد waddankaaga joogaan spare parts laga dhigani been ma nin walba waddankiisa wax ku yahay uu qiimo ku leeyahay uu darajo sare ku gaaraya. haddaba yaan spare part laga dhiganin waddankaaga dhabdhe wiilow ama gabadhay aan ku soo socono. it's so funny man. waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro bulshooyinka Soomaaliyeed ee ugu xiran barkeeda TikTok carruurtana aad arkaysaan waa carruur agoon ah waxay u baahan yihiin inay helaan fursad waxbarasho. haddii aad rabto inaad caawiso sida kuwii ka dambeeyey loo caawiyey fadlan waxaad igala soo hadashaa eber 6 sidoo kale waa dhalinyaro yar oo aanan iskuul aanan dhiganin uu ku arkay dariiqa ayuu wuxuu isku dayay in uu caawiyo waa una kaxeeyay waxa uu u kaxeeyay saa iyo iskuulka si uu caawiyo. bal videoga xiga ayaa ay ka tarjumayaan qaabka uu u geeyay waxyaalaha uu ku sheegi doonaa. bal aan ku sii socon. waa subax kale qurux badan waxaan ku sii socdaa meel kaama oo aan rabo saaka inaan ka soo kaxeeyo 6 arday ah oo agoon ah. 6duba waxaan rabaa inay fariistaan fasalka koowaad ee dugsiga hoose. aniga iyo waalidiintooda hooyooyinkooda si wadajir ayaan soo wada baxnay. waxaan ku sii wajahanahay iskuulka aan rabo saaka inay ka bilaabaan waxbarashada. wajiyadooda waxaa laga dheehanayaa farxaddan ugu weynna waxa qayb ka ah walaalo muxsiniin ah oo ugu xiran barkeeda TikTok. sababta videoga loo sameeyo ayaaba sababtan ah waay walaalo muslimiin oo daawanaya ayaa jira una damqanayo dadkooda tawaaleysan oo aanan karayn ama ay qarashka iskuulka lagu bixinayo. waxay ku soo xiriirinayaan isla isaga oo ay ku oran doonaan caawi walaalkaas aad meesha ku aragtay ama qarashkaas anaa qaba iyo waxyaalo noocaas oo kale. Justy waxa uu caabiyay suu isaga sheegay imika gabdho ama wiilal isku jira uu iskuul geeyay walaalihii isagu lacagta u soo dhiibay oo de u xil saartay ayuu ka hadlayaa. bal aan ku soo socona videogiis. waxbarashadooda ilaa ay ka gaaraan dugsi sare. intaas kadib waxaan la fariistay maamulka dugsiga oo ay waalidiinta si qurux badan u soo dhaweeyay. halkaasna intaas kadib ardaydu waxay fariisteen fasalkooda loogu talagalay. dhammaantood 6dooda waxaan la dardaaramay inay waa arrin farxad leh wallahi. waa dad aanan iskuul dhiganin in iskuul geeyo ay wax bartaan ayuu isku dayay. bal aan ku sii socono the last video uu soo dhigay bartiisa. waxaan maanta mar kale booqday dugsi quraan ah oo ay dhigtaan arday isku jira gabdho iyo wiilal. macallinkuna dhexdooda fadhiya. intaas kadib ardaydu waxay u qaybiyeen xalwo iyo buskud iyo waxyaalo kale ka farxi karaan oo aniga ardayda la wadaagay. macallinkana kala maqnaa kaalintiisana qayb weyn oo uu leeyahay isagana wuxuu talagalay hadiyad aad u qiimo badan oo aan rabno asaga iyo ardaydiisaba inuu soo duceeyaan. ما شاء الله gabagabadii ayaan isla soo gaarnay. videogan waxa kaaga baxay barta commentiga noogu reeb. just waxaan idin leeyahay videogan wuxuu ahaa dhiirigelin aan idinku dhiiri dhaanto walaalkaa inaad ku caawiso haddii aad waxaad ku heeso amaadka wax de adigu ka badan ama qarash adiga ka badan haddii aad haysto walaalkaas aad ugu caawiso. just
wuxuu caawiyey adiga arkay mar uu laamigii dhisto ama mar uu qashinka ururiyo mar uu walaalihiisa caawiyo horta sababta video loo duubay ma aha isustaa waxay ka dhigan tahay si ay dadka ugu daydaan ay usoo bandhigaan walaalahooda ama tabaaleysan ama dee wax qarash saa u badan aan haysan si ay u caawiyaan sidoo kale waxaa soo caawiyo dad kale oo dibadaha ku nool iyaguna inta ay ku dhaamaan ay kusoo caawiyo walaalahaasi ama dhibaataysan oo aanan haysan qarash ku filan just haddii aad gabagabada soo gaartay barnaamijkan ama gunta barnaamijkaad soo gaartay dee hee wiilkaasi tiktokiisa follow dhaha like ta saar commentiga shareta intaba waa xagina sidaa iyo goodbye